الله سبحان الله. waxuu xusuusiyay bari baan anagoo jamaaca khuruuj ku baxday meesha leeyahay Minnesota. سعيد يحيى الله نحرسته رحمة الله عليه ayaa iga yar waxa dhayna soo booqo Soomaaliya halka waa badan yihiin oo bariyihi dowli المهم ماشي Minnesota tagay marka masaajidkii markii hawshii kalimadii waxay dhamaatay baanan yimid waa isgaranay inaan reer xamar islaahayn kaas balbalaar meesha leeyahay xamar ciyaalka xaafadda mutaqaan ciyaalka xaafadda islaahayn marka wuxuu yiri sheekhu dhibaato ay haysata horta jamaacadu waa kuwa yiraahdo khuruujka dadka nala baxo wuxuu yiri waa ku qasbanahay balwahan anaaba khuruuj iska ahaayo guriga waa liga soo yiri marka alxamdulillah daaman meelan saxda aan idinka helo waaba fiicanta kowda laakiin bal waxaan rabaa buu yiri meeshaas cid kale oo igu celin kartaa oo adiga aan ahayn mar ilaahay baa ii ka soo diray qofkaas cid ay wadaadadii dhulkan joogay way ka maqli weeyay sheekada waxba ka maqli marka ina keeno bal iraaco telefoon iyo waxaasna wax ma tarayaan waa inaad adigu tagtaa guriga tagtaa adigu sidii baa dhacday alxamdulillah gurigii baan tagnay sida uu hadda shaacali sheegay barbaryo iyo ballama aan kala galay iyo inuu ninkan hagaagi doono iyo inuu fiicnaan doono ya ilaahay ba toobada waa aqbalaa in toobadiisa aad qoosho الله لطيف بعباده مركا وبديه شركته تاسي كواسي كمد هيد الحمد لله انك على كل حال غوريسو كو نقد ان شاء الله الله ودام بريغاس اي قدام بيشي غوريسكينا لما بحمد غوريسي وسكال هي او دمات الله لطيف بعباده مركا شعلي ميشو وليه ميشان كنمد انا ما ودا كليين ما اسغا شيغي شيغي ايش مصطفى بير هore kasoo guureeyo sagay yimidiyo kolka dadku runtii dhulka hadalka uu Sheekh Mustafa sheegay dhab ah waa shirkad baabaaday way yartahay saddex markay yihiin laba ayaa faashil ah fil bayt la yumkin ma waa yartahay ba dad isku daa'imay waa yartahay wali waxa arkaysa dad duqoobay oo isku duqoobay caruur waa weyn isku dhalayo lagu leeyahay meesha waa lagu kala tagay ama waa lagu kala tagay mee wadaadkii waa la eriyay marka Allah naga badbaadiyo sharkaas Allah naga badbaadiyo tawfiiqda Allah na waafajiyo meelaha laga yaabaa in badan oo idin kamida aad yaani shinsanaysaan oo rajaynaysaan oo isleedihiin nolol fiican baa idin ka horeysa xaqiiqatan nolol wanaagsan idin kama horeyso tadakhul saafir ayaa lagu yeeshay fil usra ama dhinaca xagga dumarka noqota ama ciyaalkii baa hadda ka daran ba caruurtaadii oodan maamuli karin oo waxa oran karin oo kelimad dhihi karin marka shar badan oo ilaahay naga badbaadiyay weeyo oo ilaahay islaamkeena iyo diinteena nagu siiyay Allah nagu daa'imo insha Allah ta'ala ikhwani waffaqana Allah iyaakum lima yuhibbu wa yarda rinta in gurigu bittaqwa oo ku hagaagayo waa arin muttafaq calayha taqwada ilaahay baana yani gurigaasi uu ku daa'imi kara oo xuquuqda iyo fawqaha al-ihsan labadiiba keeni karta qof walba markuu ilaahay ka baqo حتى في باب تعدد زوجاتك labadiyo oo meesha ugu mashaakil badan arrintii marka lagu soo noqdo reeraha oo yani dadka muslimiinta ilaahay taqwadu daba dhigay ayatu ta'addud oo mesela ayadahan inta badan dadku ay ku dadkan arrimaha diidan ay ku dhagaan walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum ma dhamaystiran fala tamilu kull al-mayl magaran jamaa'at tafsir ka Soomaalida tafsiirka sibaa wada dhageysateen waxay ka dhigan sida ayuha alladina amanu la taqrabu as-salah halkaas oo lagu joogsado ma dhamaystiran fala tamilu kull al-mayl magaran ilaahay wuxuu nafiyay kamaal al-adala inayna suurtoobin waana sax bashar baatahay bani aadam baata la yumkin an ta'dil kull al-'adl lakin fala tamilu kull al-mayl fatadruha kal-mu'allaqa wuxuu ilaahay daba dhigay wa in tuslihu wa tattaqu fa inna allaha kana ghafuran rahima wa in yatafarraqa markii talaqu imadana yughni allahu kullam min sa'atihi وكان الله واسعا حكيما آياتي عامك هيدا شاملك هيدا بإلهي دبرغي ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. marka ikhwaani taqwadu xusuulkeedu waa biljiddi walijtihaad. iimaanka alxamdulilah ilaah baa ku siiyey, muslim baa tahay, mudiic baa tahay, musalli baa tahay. kulamaa aad daacada ilaahay ku dadaashid fii daatika naftaada aad ku dadaashid, usradaada aad daacada ilaahay aad ku dadaashid, acmaasha saalixada aad la timaadid, iimaankaa kuu kordhaya. iimaanku hadduu kuu kordhana taqwadii baad helaysaa. taqwo haddaa heshana dee iskaba dhaaf yani usro wanaagsanaatay iyo umuur kuu hagaagtay jannadii aakhira ahayd qayb ka mid ahba ilaahay mucajal kaaga dhigayaaba, noloshaadii adduunkaaba janno kuu noqonaysa. sacaadatu addunyaa baaba ilaahay ku siinayaaba bitaqwa allahi tacaala wa taacatihi. sacaadada iyo liibaanta iyo reeraynta iyo faraxa meel lagama iibsado, dukaamana laguma gado, dowladuhuna ma sameeyaan, cid bixin kartana male ila allah. ilaahayna wuxuu ku xidhay helideeda sabab uu yeelay, alaa wa huwa taqwa, inaad ilaahay ka baqdo oo taqwada badsato oo dikrigiisa badsato. kulamaa qofku uu ka dikri badan yahay oo ka taaca badan yahay oo ilaahay uga dhowaansho badan yahay ayuu ka sacaado iyo liibaan badan yahay. xadiidkan saxiixa ah ee kulli aan wada garanaynayna soo wada maray, nebigu laba nin buu sheegay, labaduba ay seexdeen. kullunaa waa bani aadamkao dhan waa seexdaa. wuxuu yidhi idaa naama axadukum yacqidu الshayطaanu calى qaafiyati ra'si axadikum ida huwa naam ثalaaثa cuqad yadribu calى kuli cuqdaة calayka leyl طawiil farqud fain istayqظa fadakara allah inxalat cuqdah fain tawaضأa inxalat cuqdah fain صلى inxalat cuqaduhu kuluha فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. للعجب إخواني حديث كان أئمة كل جود وحي كسو دارين أما يكوشا في باب قيام الليل، في باب صلاة الفجر كومي شيء قيام الليل بلغ هذا شيطان كأيا وحكو كنتيا رأسك أما قافية رأس أحدكم مدحيسة saddex guntin oo qaybi oon la arkin. mid walbaba wuxuu ku dabcinayaa oo ku qorayaa calayka leylun tawiilun farqud, habeen dheer baad haysataa, iska seexo. waa waxaana markaad soo gadgadoonto ama aad musqusha u kacda ama saacaddu kugu qaylisa ama telefoonka aad isagaa kula hadlayo, waa cuqadkaa weeye, iska sii jiif weli weeye, habeen dheer baad haysataa. marka haddii uu kaco oo uu ilaahay xuso, waana sunna inaad ilaahay xuso markaad kacdo, laa ilaaha ila allah dikru llah, hal xabbaa furmaysa, cuqadkii mid baa furmaysa, guntintii mid baa furmaysa. haddii uu weysaystana tii labaad baa furmaysa. haddii uu salaatuleyl tukadana saddexdiiba way furmayaan. maxaa ka ratimaya oo ka dhalanaya? fa asbaxa طayiba nafsi, naftiisu minay ayibtaho wanaagsan tahay oo nashiid ah. wa xayaatu ljanna, sacaada, liibaan, raynayn, farxad ayuu la soo kacaya qofkaas. wailaa hadduu saa yeeli waayo oo uu kici waayo oo dabcigii shaydaanka uu ku dabciyey uu la seexdo, asbaxa wuxuu waa bariistaa khabiiثa الnafsi kaslaan, miday naftiisu ay khabiid tahay oo kaslaanahu caajis ah. طayiba الnafsi nashiiطan waxaa ka dhalanaysa akhlaaqdii wanaagsanayd. wax alla wixii fiicnaa, ama qoys ha noqoto, ama mucaamaladiisii zawjada uu lahaa noqoto, ama caruurtiisii iyo suu dhaqi lahaa noqoto, ama umuurta xataa bannaanka markuu u baxo shaqadiisii uu soo gudanayo, waa nin dayiba nafsi nashiid ah oo farxaan ah oo aan mushkila haysanin. leanna sacaadadii baa ilaahay qalbigiisa ku shubay, waa liibaansan yahay, walow faqiir ba ahaado, walow iyuna waxbaba haysanin. tan kalena maxaa ka dhalanaysa inuu khabiiثa nafsi uu yahay oo naftiisu ay xun tahay, waxba u dulqaadan karin, oo waxaan waxbaba ahaynba wax ka dhigay. marka yuusan warkuu nala sii baahaynay insha allah mashaayikhda inoo dhameeyey si baabkan laga hadlayo qoyska dhexdiisu ay u hagaagaan. acmaashii nubuwada nebiga calayhi الsalaatu wassalaam oo usrada dhaxal siiyey aynu ku dadaalno
oo gurigii reerkii wax kasta waa loo kulmaa, cuntadii waqti baa loo kulmaa, faajafaajintii kale iyo bahalladii la daawanayay mar baa loo kulmaa haddii la rabo. waxyaalaha kale oo dhan waa laysu waqti dikriga ilaahay loo kulmana ha la samaysto oo reerkoo dhan ay isu yimaadaan oo xalaqatu tacliim la sameeyo oo ilaahay la xuso oo qur-aanka la akhristo oo xadiidtii nabiga la akhristo calayhi salaatu wassalaam. halkaa maxaa ka dhalanaysa? malaa'igtu inay soo degto, naxariistu ay soo degto, ilaahay uu xuso. muddo yar kadib waabaa la arkay, waana la jarribay in badan oo reero oo mashaakilkooda la xallin waayey. muddo yar kadib xalaqadaas dikriga ilaahay markii ay sameeyeen, ilaahay dhibaatadii waa ka dulqaaday. malaa'ig baa meeshii timid, shayaadiintiina meesha way isaga tageen. umuurtan umuur haybi weeye, waxaana lagu gaarayaa bimujaahadati nafs. waana la ogaado wax kasta taasaa ka adag. درسي إن دقيسته تفسير عاوز هو دقيسته مسجد كتكتيت أما درسي كلا تكون تحت محاضرة سيدنا هذا فردي واكو سهلنتاي لكن قول إن هذا إسلامتي عروتي أنت سصهر فريستان هذا حديث النبي القرآن كأخرستان وأرن آدو آدو مجاهدة بدن أباهن وأنا أهم أسباب تأجوين يحكوها جاجان وي وأنا سنة النبي الصحابة رضي الله عنهم خير كأن النبي كم مغلان صلى الله عليه وسلم gurigooda la tegi jireen, khayrkaasay saa u gudbin jireen. abu salama radia allahu canhu xadiid buu nabiga ka maqlay, walxadiidu fi saxiix. wuxuu maqlay nabiga oo leh maa min imri'in muslimin tusiibuhu musiiba ay ku dhacdo oo fayastarjic ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun yiraa uma ducadan ku ducaysta allahuma ajurnii fii musiibatii, musiibadayda ilaahow iga ajarsii, wa akhlif lii khayran minha, wax ka khayr badanna ilaahow iigu bedel. axad saa yeela ma jiro ilaa ilaahay wuu siiyaa. xadiidkii buu gurigiisii la tegey. ummu salama oo zawjadiisii ahayd baa ka maqashay. musiibadii isagay bay reerkii bayba ku timid oo isagii baa dhintay. ummu salama iska sheekaynaysa radia allahu canha, waxay tihi markii uu dhintay abu salama ducadii baan ku ducaystay, laakiin waxaan isiri bay tihi ducadan ahay wa akhlif lii khayran, isaga mid iga khayr badan ilaahu isii, waa ila suurtageli weyday. kee abu salama yaa ka khayr badnaan karaba? akhlaaqdiisii wanaagsanaa iyo mucaamaladiisii dayibka ahayd yaa isagoo kaleba noqon kara. ducadii waa ku ducaysatay. ciddadeedii markay dhammaatay bay tihi, weliba laxdadii arrintan ay dhacday ayay taqyiidisay oo qortay. waxay tihi aniga oo maqaar maxaa la odhan jiray harakade magdinaya somaali af soomaali waaba iska sii iloobaynaaba ayuu nabigu iga soo idan qaatay iridda waa rasuulullaahi sal alla alayh wasalam. dabadeed barkin baan u dhigay bay tihi xashwuhaa leyfun oo ku fadhiistay. fakhatabanii ilaa nafsihi sala allahu calayh wasalam. naftiisuuba ma aragtay ii khidba yani oo inuu guursado. markaasaan ku idhi bay tihi yaa rasuul allah, qof horta muslimadahoo mu'minadoo ku diidi kartaa maba jirto, oo taasi arrintaasi imaba suubanaba, laakiin 3 ceebood baan leeyahay. laakiin sheekh hadda lahaa qof walbaba wixii sheegi maayo, laakiin iyadu way sheegtay. waxay tihi 3 ceebood baan leeyahoo ceebta koobaad waxay tihi anugu waan weynaaday oo qof weyn baan ahay. tan labaadna waxay tihi carruur baan leeyahay oo carruurtu dee ceeb maaha, laakiin waa hiqal, waa culays, waa inaan kugu culaysiiyo ma jecli. arrinta saddexaadna waa arrin qalbiga ah oo kuwa hore maadda maxsuus ay ahayd, laakiin kan waa arrin qalbi oo waxaan ahay bay tihi qof qiiro badan, qiira masayr badan baan ahay, adiguna haween badan baad leedahay. haddaan adiga isu kaa mujaamilay waxaan ka baqayaa ilaahay qalbigayga intuu wax ka daalacdo inuu igu cadaabo. marka 3 ceebood baan leeyahayoo ee si kale kumaba diideen, waana ku diiday kuma dhihi kara bay leedahay rasuulullahi sal alla alayh wasalam. nabiga sal alla alayh wasalam arrintii waa u sahlo, wuxuu yidhi da'da aad sheegatay amba waa iqahaysaa amba da' baan ahay. falaqad asaabani aladii asaabaki. ciyaalkana soo maaha waa ciyaalkayga, waa ciyaaluka ciyaali. arrinta saddexaad oo masayrka soo maaha. faana asalu allah, xalka agtiisa waaba iska sahlan tahayba, alxal cindu sahal. anaga yaqiinta eber naga noqoto saasaan meelaha derbiyada madaxa ku garaacayna. ama alqiira soo maaha. faana asalu allaha, ilaahay baan baryayaa oon weydiisanayaayo fayudhibuha canka, waa kaa kaxaynaya, ilahay baa kaa kaxaynaya. qiirada ilahay baa kaa kaxaynaya.
أم سلمة وحيتري فأبدلني الله إلهي وحي بدلي خيرا من أبي سلمة وكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أركا أمهات المؤمنين سيدا سيكون نغطي بل من أكثر أمهات المؤمنين حديثا بعد أمنا عائشة نغطي رضي الله عنها وأرضاها وحين تاكوها الشيء وأساسه تكوين حلقة التعليم في البيت قرية إن آن لقد من اللقو عنتيو اللقو عبو وقضاء الحوائج والشهوات كلية واللقو إيو فرفشئية كلام فارغ وذكر إلهي لغا خالي لبات وردن هل كاسي كتم هذا حديث أرنتي هورين شيء قيام الليل ككساب سني ما أركتي أن كاففتين إلى هشيس هكسي هرمرو على سوسي شيء حلقة تعليم كقولي قال لغا سميني أمورها سائلة هي تقوى نغسينيا قولي أوكوها أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى اجعلنا من عباد الله